Korneyl Siciid Cawil Jaamac oo loo yaqaano Korneyl Care ayaa maanta waxa uu ciidamo fara badan oo kaamir qaadanaya iyo hubkii ay wateen wuxuu ku wareejiyay xukuumadda Soomaaliland oo ay dagaal kula jirtay jabhadda uu hogaaminayay balse uu la heshiiyay munaasabad kooban oo ka dhacday buurta Daalo ee duleedka magaalada Ceelgaabo ee gobolka Sanaag ayna goobjoog ka ahaayeen odayaasha dhaqanka beesha uu ka soo jeedo iyo xubno ka socda xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa uu ku wareejiyay dhammaan ciidamadii kaamir qaadanayay iyo hubkii ay wateen kuwaas oo hore uga goostay Soomaaliland 2019 waxaan halkan ku soo dhaweynayaa saraakiil aad u fara badan ka kooban 24 oo hogaaminayo gaashaan la dhexe Cali Cabdulla Saalax iyo ciidamo aad u fara badan oo ka yimi dawladda Muuse cadaalad darrada ku wahayo wadankooda ciidamadaas oo u dhashay gobolka Sanaag baran Ceelgaabo Jiidali فغفرية شمبرالة إلا من حضن wadahadallo bilihii la soo dhaafay ka socday deegaana ka tirsan gobolka Sanaag ayaa shalay la soo gabagabeeyay isagoo oo la heshiiyay Soomaaliland waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in Korneyl Care uu aadi doono dalka dibadiisa maanta waxaan ku wareejinayaa ciidankii jabhadii dulmadiid oo fadhiya sidaba oo mugle ayaan idinku wareejinay iyagoo saraakiishooda wata aqoon-yahankooda wata halkan waxaa jooga hal fadhi oo infantry iyo hal fadhi oo technical laba fadhi waxaa jiraan xeebta waxaa taliya guutayaalka Yaasiin Xuseen Xasan gaashaan la dhexe mutaystay iyo Cumar Jimcaale Diriir oo isna gaashaan la dhexe mutaysto laba guuto xeebaha jooga meesha la yiraahdo shumux iyo meesha la yiraahdo Cilaamad waxa jira urur bohol joogay wuxuu soo galaya caawa meesha la yiraahdo Ceelbaan isagana indhihiina ku arki doontaan haddii aan la yiraahdo tirada ciidankaasi waa 800 oo infantry iyo 100 technical sar 900 intaasaan maanta idinku wareejinayaa aad iyo aad baa mahadsantihiin nabad baa ka shaqayseen laakiin kuwada halkeedana gaarsiiye idinkana waxaan idinkula dardaarayaa saraakiishaas waa ku soo tacabnay إلى هالكذا قرصيسان ورايد انت كبعد ترياها عيدا كغرنك جمهورية الصومالي لأنه حسب عالي ثاني وعن لايه عدالة طويل عدالة بادت كده يغضر هذا قدرت كنا وحن لايه قولوا وحوا مطرتوه أنا قيد قال كي نقد ديدين bishii May sanadkii 2018 ayuu ka goostay ciidamada Soomaaliland Korneyl Care isagoo oo noqday sarkaalkii ugu horeeyay ee jabhad samaystay isla markaana dagaal khasaare geystay la galo xukuumadda Soomaaliland isagoo ka carooday dagaalo beeleedyo ku soo laalaabtay deegaanka Ceelafweyn خلصة قوة الرمح ولا عارف تقول ربنا إنه مرسى وحد يقدر ما أنا بقدر صعب مش وين صعب يا صعب هذا صعب أنا قاعد أنا صوغا يقول نعلاي يقول سبح الله يلا بزلون